jaamacadda iyo dhakhtarka Adna Aadan iyo ururka daawayaqaanka Somaliland ee SOFA ayaa maanta u soo xidhay tababar ku saabsan badqabka warqadda daawada lagu qoro iyo qaladaadka ka yimaada qaar ka mid ah bahda caafimaadka. Tababarkan ayaa socday muddo 3 cisho ah waxaana ka faa'iidaystay 30 farmasiisti kuwaasi oo laga soo kala xuray dhakhtarada waaweyn iyo shirkadaha daawooyinka. Xidhitaanka tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota jaamacadda Adna Aadan iyo ururka daawayaqaanka iyo mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay waxaana ka mid ah hadaladoodii. Maanta waxaan halkan u joognaa inaynu soo gabagabayno tababar inoo socday 3 cisho kaasaynu kaga hadlaynay qaladaadka amba badqabka warqadda daawada lagu qoro iyo sida looga hortagi lahaa qaladaadka ka yimaada kaasoo ah mowduuc muhiim u ah daawayaqaanka Somaliland. Trainingkan oo ay iska kaashadeen jaamacadda Adna Aadan University iyo cusbitaalka Adna Aadan University iyo ururka daawayaqaanka Somaliland oo loo yaqaan Somaliland Pharmacy Association kaasoo wada fuliyay trainingkan iyagoo u qabtay 30 ka qaybgalayaal oo pharmacy professional si kor loogu qaado aqoontii hore soo barteen taasay bixinayeen macallimiin expert oo khabiir u ah oo jaamacadaha waddanka iyo dibaddaba ka yimid. Runtii farxad weyn bay inooga tahay ka urur ahaan inaanu trainingkan oo kale aanu qabanno oo aanu maanta soo xidhno. Marka inaynu ka hortag samayno habka communicationka u dhaxeeya qoraalka ah written communicationka u dhaxeeya dhakhtarkii iyo clientskii iyo pharmacistskii iyo eventually nurseski laga yaabo inay ku mudaan. Marka in dhammaan silsiladda la hubiyo hadday tahay taybinkeeda qoraalkeeda iyo hadday tahay fahanka macmiilkeena ama qofka bukaha ah inaanay dawadina qalad aanay ku dhicin qoraal ahaan fahan ahaan aanay qalad ku dhicin. marka runtii topic aad u muhiim weeye oo ka turjumaya life saving skills in hawlwadeenada caafimaadku ay awood u yeeshaan in ay khaladaadka bini'aadan baan adduunka oo dhan khalad u dhacaya laakiin inuu ku baraarugsanaado fahansanaado procedureskeeda uu yaqaano habka loo xakameeyo inaanu khalad dhicin. qof walba wax buu qaban karaya mid kastoo idin kamid ah 10 qof buu caawin karaya 20 buu caawin karaya 5 buu caawin karaya. marka dhaqanka noocaasi ah inaynu is wada qaadno oo nin walba wuxuu garanayo qof kale gaarsiiyo aynu dabeecadda horumarino aynu aadna iyo shinana kaga dayano. walaalahayna kale naga soo qayb galana muhiimadda uu tababarka leeyahay sheegayaan. kalmadaan maalintii hore baan ku celinayaa daawo la qoray waxaan rajaynayaa in badan ay khaldantay. waxaa dhakhtarku saa u yara sawirka ka dhigo ama saxiixa u eegay inay in badan khaldantay baan rajaynayaa. waxa anigana aqooni ahayd intii aan tababarka joogay idina aad u barateen muhiimadda ay leedahay xogta la isweydaarsanayo ee dhakhtarka iyo qofka dawada dhiibaya u dhaxaysa inay sax noqoto muhiimadda ay leedahay. professorku wuxuu inoo sheegayay nin computer ku daabacay oo hadana spell error sameeyay oo aqoontiisii ku qabtay errorka inta la leegaano arkaynaa waxay marag cad ka tahay inay khaladaad badan dhacaan. kalmadii aan maalintii hore baan ku celinayaa haydi ka soo baxaan niman lawyer pharmacist ah oo dambiyada ay galaan dadka waxaa sahashanaya maxkamadaha geeya oo deetana ummadana badbaadiya iyaguna magac iyo dhaqaalaba ku hela. waxaan rajaynayaa inaanu noqon intaynkii koobaad ee isku nimaadno ee uu noqon doono qaar soo noqda oo wax lagu kala faa'iido aqoonta qofna meel bay u gaarsiisan tahay idinku ku jirtaa macallimiintu ku jirtaa marka isla kaashadaan wax noqota aqoonta ee la weeleeyo. marka run ahaantii intii halka aan joogay waxaan arkay in active participation uu jiray. waxaan insha Allah taala rajaynaa inaynu wax way isbedel dhameystiray inaynu wax way qaybtaas oo ka qayb qaadano oo aynu insha Allah taala aynu ka qayb qaadano waxa la yaqaan health promotion inaynu kor u qaadno caafimaadka waliba deegaankeena caasimadda ee Hargeysa. aad iyo aadna waxaan halkan waxa weeye aan ka salaamayaa runtii macallimiintayda sharafta leh waxa weeye sidii wacan oo wanaagsan runtii milgahay maamuuska leh ee wax noogu sharaxayeen casharka. maanta waa gabagabadii waynu gabagabeynaa waynu xidhaynaa 3 cisho soo wadeen waa ka faa'iideysateen halka waxaan ka fahmayaa sida aan filayo inaydun aqoon badan kasbateen.
aqoontaasi waxay ku saabsanayd badqabka qoraalka dhakhtarka. waxaa laga yaabaa sidii laga wada dhawaajiyey qalad qoraal oo uu dhakhtar sameeyey inay sababtay qof dhibana ah inay dhib u geysatay. waa suurtagal in badan in iyadoo si qaldan loo fahmay oo loo tarjumay si qaldanna inay qaladaad kala keentay. in badan bay dhacaysaa. sidaa daraaddeed cinwaankan maanta aad ku tababarateen la soo gabagabeynaya waa muhiim, aad buu muhiim u yahay. idinku haddaad tihiin professionalskii aqoon-yahanadii dawada si fiican baa u isticmaashaan. dawada waa kaydisaan, dawada waa xafidaan, dawada waa bixisaan, dawada waxa ka digtaan side effectska ay leedahay, alacraad aljaanibiya ama dhibaato dhinaceedyadeeda kale, dhibaato dhinaceedyada ay leedahay ayaa ka digtaan. haddii markaa la ilduufo qoraal uu dhakhtar soo qoray oo si fiican loo fahmi waayo oo si fiican loo qori waayo, dhibaato ay qofka dhibanaha ee patientka ah ee buka ay ku keenaysaa.